guddi-hoosaadka dhinaca sharciga ee koongareeska maraykanka ayaa qabanaya berri ama maanta oo isniin ah dacwad kale oo la doonayo in lagu soo oogo madaxweynaha maraykanka Donald Trump. baaritaankan ayaa waxa saldhig u ah eedo ku aadan inuu madaxweynuhu ku xadgudbay awoodiisa kadib markii uu culays ku saaray dowladda Ukraine in ay ku dhawaaqdo baaritaan ku aadan ninka ay amaba musharaxa ay siyaasadda aadka ugu hirdamayaan Joe Biden oo hoggaanka u haya musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga. wariyaha VOA-da Arash Arabsadi ayaa ku soo warramaya in xiisadda kala qaybsanaanta siyaasadda ee Washington ay sii xoogaysan karto maalmaha soo socda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa. arrin ku bilaabatay baaritaan xaqiiqa raadina ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii afhayeenka koongareeska Nancy Pelosi ay ku dhawaaqday in tallaabada xigta loo gudbayo. Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America. waa arrin murugo leh waxaanse ku kalsoonahay oo aynu dhiiranaan ka helaynaa wacadkii aanu u marnay kuwii dalkan aasaasay. waxaa iyadoo uu wadnaheennu jacayl Maraykan ka buuxo aan maanta weydiisanayaa guddoomiyaheennu inuu u gudbo qorista qodobka dacwadda. waxay tani noqonaysaa dhagaysigii ugu horreeyay ee uu qabto guddi-hoosaadka sharciga. Jerry Nadler oo guddoomiye u ah guddi-hoosaadka sharciga kana soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa uu yiri. We have each taken an oath to protect the Constitution, and the facts before us are clear. President Trump did not merely seek to benefit waxa uu mid walba oo naga mida uu dhaar ku maray inuu difaacayo dastuurka. xaqiiqda horteenna taallaahi waa ay caddahay. ma ahan inuu madaxweynuhu raadinayo oo keliya faa'iido uu ka helo faragelin shisheeye uu ku sameeyo doorashadeenna, balse waxa uu si toosa oo aan geedna loogu gaban uu ugu casuumay dal shisheeye inay farageliyaan doorashadeenna. Trump ayaa weeraray sii wadista iyo u gudbidda wejigan kale ee dacwadda, waxaanay mudanayaasha jamhuuriga ee la olaga ah ay ku tilmaamayaan mid siyaasadda ay ka dambayso. Doug Collins oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri. The chairman talked a lot about the founders from the quotes and again this is why we have the hearing about the founders being concerned about foreign influence. waxa uu guddoomiyaha guddigani ka hadlay aasaasayaashii waddankeena iyo sharcigeena iyo waxyaabihii ay yiraahdeen. taana waa sababta aynu uga fadhino dacwad ku oogista madaxweynaha sidii ay aasaasayaasheennu ay uga walaac qabeen faragelinta shisheeyaha. balse waxaa kale oo uusan soo xigan ayaa ah in aasaasayaasheennu ay sidoo kalena ay si weyn uga walaacsanaayeen dacwad ku oogis siyaasadaysan, waayo ma jeclid qofkan in loo sameeyo dacwad ma aha. aqalka cad ayaa ku amray saraakiishooda sarsare ee la socday arrintan ku saabsan wicitaankii taleefan ee Trump uu ku weydiistay madaxweynaha Ukraine Zelensky inuu asxaan siyaasadeed u sameeyo in ay dhagaha ka xirtaan u yeeritaankii koongareesku uu yeeray si ay u marqaati furaan. mudanaha lagu magacaabo Zoe Lofgren oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay tiri. The president has improperly withheld those witnesses. The idea that there's absolute immunity u hor istaagay marqaatiyaashaasi. Fikirka ah inay jirto mudnaan gaar ah waa mid uu qof sidaasi ku samayn karo, mana ahan wax la aqbali karo. salkuma laha sharciga iyo dastuurkaba arrintaasi. waa qatar jirto oo ku soo fool leh ammaanka qaranka, waana ku tagrifal awoodeed. jamhuuriyiintu waxay sheegeen in haddii lagu qasbo marqaati fur xubno heer golo wasiiro la awood ah oo ka mid ah aqalka cad, intaas ay noqonayso tusaale qatar ah. mudanaha lagu magacaabo Matt Gaetz oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri. Everyone's always worried from now going forward that if you suggest something to the president or you're engaging in conversations about an mar walba uu ka walwala inuu marqaati u soo istaago. haddii aad arrintan madaxweynaha u soo jeediso ama aad ku lug yeelato wada sheekaysi looga hadlayo waxyaabaha caqabadaha ah ee soo socda in laga dhex aqriyo koongareeska iyo waddanka oo dhan, waxay ila tahay intaas ay dhaawacayso hal abuurka iyo fakarka furan ee sanduuqa aan ku jirin ee aynu doonayno in aynu ku aragno xafiiska sare ee fulinta. guddi-hoosaadka sharciga ee koongareeska ayaa saaka oo isniina qabanaya dhagaysi lagu eegayo markhaatiyaasha ka dhanka ah Trump. guddoomiye Jerry Nadler ayaa sheegay inuu jiri doono cod loo qaadi doono
qodobka lagu salaynayo dacwadda loo haysta madaxweynaha dhammaadka toddobaadkan. warbixintii wariyaha VOA-da Arash Arabsaadi waxaa noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.